bismillaahi raxmaani raxiim. Soo dhowaada daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ku wada xiran janalada kale ah Somali Baqir TV iyo Xogsuga Media TV. Waxaa inta badan warka inala socodsiiya caalamka Faarax oo ah nin aad uga barateen inuu idinla socodsiiyo xogaha caalamka oo ah nin aqoon-yahana mid maadi mid diiniba yaqaana, iyo anigoo ah Saleemaan oo ah wariye isu xilqaamay isagoo kaashanaya maaragtay saxafiyiinta waaweyn ee caalamka ku xiran in aan idinku xirno wararka caalamka. Kuwa Soomaaliyana inta ugu waaweyn ayaanu ka soo qaadanaa. Kuwa Soomaaliya maanta ka soo qaadanayna haddii aan kor istaagno waxaa ka mid ah ururkii ahlu sunna oo siyaasad ahaan ay wiiqday dowladda federaalka Soomaaliya iyo sababaha keenay in ay wiiqanto, iyo fatahaadda webiga Shabeelle oo isaguna ilaa xal la tacaalay guulo waaweynna laga soo hooyey. Qodobada caalamkana waxaa ka mid ah wadanka Lubnaan iyo wadanka Ciraaq oo weli uu ka socdo banaanbaxyo. Sababta banaanbaxyadaas keentayna waanu kor istaagi doonaa. Nimankii Daacish ahaana waxa ay magacowdeen gudoomiye cusub markii la dilay koodii hore ay hore ula joogay ee la yiraahdo al-Baghdadi. Intaasoo waraan kor istaagaynaa. Kuwa Soomaalida marka aan ku horeeyo waxaa maaragtay siyaasad ahaan lagaga guuleystay ururkii 14 sano haystay deegaanada gobolada dhexe ahlu sunna wal jaamaca uu hogaamin jiray macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo Sheekh Maxamed Shaak Cali Xasan. Waxaan isleeyahay waa dadka inta badan way ogyihiin uma baahna maanta in loo sharaxo. Maalmihii hadda la soo dhaafay waxaa gacan ku hayntoodii si dagaal aan dhiig ku daadan lagula wareegay degmooyinka Ceel Dheere, Matabaan iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb oo xarun u ahayd. Maantayna waxaa laga sugayay magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u dhameeyo tabashooyinka ay wadaadada qabaan. Halkaa marka waxay u egtahay dowladda inay xoogga saartay rabtana inay ka dhisto maamul ay Soomaali oo Soomaalida meesha degan u midaysan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Taa marka xagga kaga gudubna webiga Shabeelle isagana waa lagu guuleystay oo dadkii deeqa badan baa la gaarsiiyay ilaa waqooyi ilaa bari ilaa koonfur. Soomaalidu isu gurmatay, caalamkana waa isu gurmadeen. Annaguna hadda labadaas janal ahaan waxaanu Soomaalida ugu baaqaynaa in ay mar kaleeto gurmadka laba lixaadiyaan oo walaalaha reer beledweyne iyo dhammaan dadka fatahaadaha Soomaaliya ku qabsadeen in ay loo gurmado oo loo kaco oo aan la sugin in ay caalamku mar walba ay na garab istaagaan. Waxaa la rabaa in Soomaaliya garab istaagto. Waxaan leeyahay intaa waa hadalkii aan kelimadii aan Soomaaliya ugu talagalay. Faarax iyo waxaan rabaa dhageystayaasha aqoon-yahan Faarax iyo dhageystayaasha inaan isaga dhaxbaxay wixii caalamka ku cusub. Halo Faarax. جزاك الله خيرا أستاذ سليمان. وري آدي أدمان مغلها يا وركاغا. soo dhawow warkii caalamka iyo waxaa la rabaa ay shacabka inaad isku xirto. Maxaa caalamka maanta ka cusub? arrin waa midda aad dul istaagtay walaalle oo waa midda Soomaaliya culimadiinka ahlu sunnati wal jamaa ay hogaaminayay macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo waxa weeyaan Sheekh Cabdiqaadir Ashcari iyo Saadiq Sheekh Yuusuf oo laga guuleystay oo dawladii Soomaaliya aan aragno maanta inay guushu iyagu dhinacooda ay soo raacday. arrinta iyada waxaa sababtay laba cilo ahlu sunnati wal jamaa oo kala jabtay oo laba garab u kala jabay. garab uu hogaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir iyo macallin Maxamuud Macallin Xasan iyo garab uu hogaamiyo Sheekh Cabdiqaadir Ashcari, Sheekh Cabdirasaaq Ashcari baan leeyahay. Sheekh Cabdiqaadir Ashcari oo ninkii ugu horeeyay ee uu xabad bilaabo oo nin dhalinyaro ahaa jidhkiisa iyo xubnihiisa qaaliga ahaa qaybo badan oo ka midana ku waayay, haddana markii dambe u jahaystay dhinaca iyo waxbarashada wadankana ka sameeyay madaaris iyo zaawiyooyin iyo xawzooyin waaweyn oo shareecada islaamka uu dadka ku baro, nin da'yarna ah oo tirada 30 ku jiro. iyo Sheekh Maxamed Shaakir oo arrinta siyaasadda gadaal kaga soo biiray intii uu digtooro ku soo diyaariyay jaamacatul ahqaaf ka bacdi ku soo biiray wixii ka dambeysay 2014 ku soo biiray siyaasadda ahlu sunnati wal jamaa. iyo macallin Maxamuud oo raggii ugu horeeyay Ashcari iyo kala qayb qaatay ahaa. khilaaf dhaxdooda yimid ayaa looga guuleystay arrinka isaga ah oo Ashcari baa waayahanba wuxuu daneynayay in dawladda Soomaaliya lala shaqeeyo si toos iyo si dadbanba loola shaqeysto oo dawladda loola shaqeeyo. arrintiisi un bayna markii u dambeysay ay noqotay isaga la'aantiina inuusan dagaalna socon karin, xabadna aynan wadaynin baa soo baxday. si toos ah marka dawladda Soomaaliya ayaa gacanta ugu dhigtay. sida ila muuqatana wax dhibaato ah oo ka dhici doono gobolada iyaga ama jiro waa say dawladdu gacanta ugu dhigtay. qof iyagu ay dawladdu wataan oo 2020 doorashada iyaga ugu shubo xildhibaanada halka ka soo gala ee dawladda federaalka u qaabilsan kooxda nabad iyo nolol ugu shubo baana ka soo bixi doonto sida ii muuqata.
si fiican marka waxaan rabnaa arrimihii caalamkan inaan galno tan soomaalida waa si fiican baad noogu sharaxday nin xog ogaal u ahna waa tahay soomaaliya waxaan rabnaa kuwii caalamka haddana inaanu dadka ka dabageyno aqoon yahan sheekhana arrinta labaad ee kale waa arrintan dalka ciraaq oo weli aad muddo awood aad u fara badan dalka ciraaq inay weli sii socoto banaanbaxayaasha meelaha ugu daran ee ay sii socdaan waxa weeye waa magaalada caasimadda Baghdad iyo magaalada Najaf oo loo yaqaan xaruntii wilaayada Amiirul Mu'miniin Imam Ali walow laga mamnuucay dadka in ay waxa weeyaan wilaayada ay u soo gaaraan dhinac walba 5 kiiloomitir laga mamnuucay weli way socdaan arrinta iyada banaanbaxyada ee socoto waxaa sabab u ah reer galbeedka iyo dawladda mamlakada Sacuudi Carabiya iyo dawladda Israa'iil waxay aad iyo aad u boorinayaan arrinta iyada ah labada qolo oo ay u wadaan in lagaga takhaluso nidaamkan hadda uu hogaamiyo Adil Abdul Mahdi dawladda loo yaqaano dawladdan dawladda Ciraaq oo la dhihi karo waa nin aad iyo aad ugu dhow Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo kacaanka waxa weeyaan thawrada Islaamiga ee Iran taas darteed in lagaga takhaluso oo reer galbeedku maadaama oo quwad awood leh halkan ka soo baxayso oo kale jabhada aad u hubaysan oo gantaalo iyo hubab casri ah ku hubaysan oo wadanka nimankii Daacish ah ka saarayna ay wadanka joogaan oo aad u hubaysan oo quwadoodu maalinka ka dambayso ay sii ziyaadayso oo xashdu shacbi ah iyaguna waxay rabaan inay u soo marmarsadaan oo arrinta marka ugu dambaysa ay noqoto jabhadaha in laga dhigo ama in uu ka arrin waxa weeyaan qabaa'il oo tii Soomaaliya lagu burburiyay oo kala ah in ay ka dhacdo ayay iyada damacsan yihiin marka reer galbeedku hadafkoodu waa nooca iyaga ah arrintan iyada ana arrin ay sunni shuqul ku leeyihiin haba yaraatee ma aha oo wax sunniyiin ah hawshan shuqul ku leh haba yaraatee ma jirto waa shiicada dhexdeeda oo dalka boqolkiiba 67 68 dalka ka ah shiicadu dalka Ciraaq arrinta iyada ana waxa weeyo sabab looga dhigayaa in lagu burburiyo nidaamkan uu hogaamiyo Adil Abdul Mahdi lagana takhaluso ayay ugu talagaleen kullay dawladda Ciraaq iyo dalka reer Ciraaqna sida ay hadda iyagu u wadaan anigu aragtida iyo ifafaalaha iga soo baxayo arrinkaas oo kale insha Allah ma uu noqon doono arrinkaas oo kale ma uu noqon doono wax dhibaato ah oo ka soo bixi doono halka iyada ma jirto maalmahan ugu soo horeyso ama isbuucyadan hadda ugu soo horeeyo ama labadan maalmood oo ugu soo horeeyo waxa ka dhici doono dalka Ciraaq gudihiisa niman waaweyn oo la og yahay oo dawladda Imaaraadka iyo mamlakada Sacuudi Carabiya iyo dawladda Israa'iil ay si toos ah u hogaaminayaan in iyaga laftoodu lala wada kaco oo la burburiyo oo si toos ah loo qabsado ayaa dhici doonto oo dadka iyaga al isweydiiyay meel ay aadeen waxaan rabaa marka in si shacabku u ogaadaan wadanka Ciraaq ma waxa loo banaan baxayaa sunnadii oo ku kacsan dawladda meesha ka jirta oo maaragtay Sacuudiga bushgaraynayo mise wax mabaadi diiniyaba maba aha banaan baxa meesha ka jiro oo waa xukun baa la isku hayaa maya banaan baxa meesha ka jiro wax mabaadi diineed oo uu ku salaysan yahay haba yaraatee ma jirto wax mabaadi diineed oo banaan baxa meesha ka jiro uu ku salaysan yahay ma jirto waxa weeyo waxay sheeganayaan dadku musuqmaasuq aad u fara badan oo iyaga ku dhacay oo lagu sameeyay dalkoodii oo arrinta iyada ana dawladda Mareykanka ayaa ka dambayso dawladda Mareykankana musuqmaasuqa dalka ka jiro iyo dhibaatada ka jiro wax dhan oo ay ka leedahay ma jirto in ka fara badan 20 sano ayay haysataa oo ay dhex joogtaa dalka Ciraaq wax dhan oo ay ka leedahayna ma jirto waxay doonaysaa kaliya jabhadahan awoodda badan ee soo baxay oo dalka Ciraaq inay la wareegaan ama madaxdan hadda dalka haysta Adil Abdul Mahdi iyo si toos ah waxay uga amar qaataan Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo waxa weeyaan wilaayada loo yaqaan wilaayatul faqih sida darteed waxay doonayaan in arrintan iyada meeshan kaga biya keentay ee awoodda badan leh ay burburiyaan xukuumaddan ay kaga takhalusaan marka u dambaysana ay sameeyaan in ay waxa weeyo maamul iyaga iyo sida ay doonayaan ugu amal falo inay halka ka dhisaan ama shacbiga reer Ciraaq ay isku diraan noocaas ay doonayaan taa marka laga gudbo waxaan rabnaa nimankii Daacish ahaa waxay sameysteen hogaamiye cusub markii uu kooda hore dhintay maxaad warahod ka haysaa oo aad nala wadaagi kartaa hogaamiyaha hadda ay sameysteen iyo waxa uu yahay hogaamiyahan horey baan uga soo hadalay baan u malaynayaa hadda sameysteen ISIS oo loo yaqaano Abu Ibrahim al-Qurashi al-Hashimi ninka isaga magaca isaga waa la yiraahdaa oo Abu Ibrahim waa kunyadiisa laakiin magaciisa saxda waxa la yiraahdaa
ismaaciil binu xaaji cabdallah ayaa la yidhaahdaa dalka urdun buu u dhashay hooyadiina waxa weeyo waa israa'iiliyad wuxuuna ka mid ahaa oo horey uu uga mid ahaa sirdoonka dalka israa'iil buu ka mid ahaa khaasatan nin tayaar ah buu ahaa oo duuliye ah oo ciidamada israa'iil ka tirsan kabacdina waqtigii ay ISIS soo baxeen ee awoodooda badan ay soo baxday oo 2000 iyo waxa weeyaan 11 ilaa 2012 ayuu si toos ah ugu soo biiray waana nin ay si toos ah u wataan reer galbeedku iyo Israa'iil in la buunbuuniyana waa la rabaa isaguna kulley waqtigiisa iyo dawrkiisa ayuu ciyaari doonaa marka waa nin Lebanon u dhashay oo aan hore meeshan uga hadalnay oo laguna tababaray buuraha Golan Heights sidaan hore u sheegnayba hadda saacadan la joogo buraleyda Golan Heights Israa'iil ayuu ku qaadanaya tababar oo uu joogaa walina kulley waxyaabihii iyo mabaadiidii la rabay inuu ka hadlo ee uu dhamaysto ee uu ku hogaamiyo ururka isaga wali muusan dhamaysanin una dhamaystiri doonaa kulley ayaamahan soo socda iyo isbuucyadan soo socdo inay Israa'iil iyo Mareykanku soo gaarsiiyaan ayaa laga yaabaa kali ahaanba dalka laga yaabo dalka Suuriya gudihiisa in la keeno oo hadda dalka Ciraaq gudihiisa uusan imaanin meesha hadda isaga xarun u noqon doonto ee uu iman doonana waxa weeye dalka Suuriya gudihiisa ayay noqon doontaa waqooyiga Suuriya daawadayaal iyo dhageystayaal wararka iyaga maanta halkaasaan ku soo koobaynaa waxaanan markasta idin xusuusinaynaa si isla warka idin dhaafin in aad sirjinka ku qortaan oo raadisaan janalada kala ah Somali Baqir TV iyo Xogsuga Media TV si aad uga heshaan warka ka dambeeya ee ku saleysan caalamka iyo Soomaaliya intaasaan idinku ekeynina maanta nala jiro oo nala jooga subscribe saarta saaxiibadiina u share gareeya like saara oo comment ka bixiya iyo afkaarahiina kala duwan hadallada halkan ay ka soo daayaan janalada kala ah Somali Baqir TV iyo Xogsuga Media TV waa mahadsantiin